فقارها كترة هاي كدرة وانتي خلاف يدا كترة هاي كدرة نما دون استيري كترة مني ما دون استدي كدرة نما دون استيري كترة مني ما دون استدي كدرة dadaalkii ku dara daryaalkii ku dara wadoodkii ku dara dawayntii ku dara dulqaadkii ku dara midnima doonisteedii ku dara مني ما دون استدي كدرة dadaalkii ku dara daryaalkii ku dara wadoodkii ku dara dawayntii ku dara dulqaadkii ku dara midnima doonisteedii ku dara مني ما دون استدي كدرة dadkii loo israacay daawaday ilaah darajeeyey daawaday qalbigu dawoobay daawaday dantoodu heshiiyey daawaday dadkeenoo israacay daawada qalbigu dawoobay daawada ilaah darajeeyey daawada dantoodu heshiiyey daawada jeelkuisu damqaday bal daawada jeelkuisu damqaday bal daawada soo dhawaada soo hoobsa soo dhawaada إله درجي داوده قلبي قدوب داوده soo dhawaada أنتو عشي kommentiga iyo sheerka xaqiina subscribe-ka أبكينو إسراعي داوده قلبي قدوب داوده إلهي درجي داوده أنتو عشي داوده جيركو يسودن قضيب داوده جيركو يسودن قضيب داوده والله afraaga cana lagu qabay jango أبكينو إسراعي aad baan ku salaamaya walaalkay إله درجي داوده قلبي قدوب ibraahim داوده yiri aad baan ku salaamaya dantoodu heshiiyey daawada dadkeenu israacay daawada qalbigu dawoobay daawada ilaahay darajeeyey daawada dantooda la shiiyey daawada midnimo jirkuisu damqadayba daawada jirkuisu damqadayba daawada midnimo mar dambe in la yegleelaa waa muqadis waa munaasib daawada qalbigu dawoobay daawada koonfuri darajeeyey daawada dantooda la shiiyey daawada jirkuisu damqadayba daawada jirkuisu damqadayba daawada kaasina wuxuu ahaa ereyadii iyo daantadii jango fanaanka weyn ee caanka caan baxay muddada dheerba maaragtay soo jireenka ahaa rogacdaadigii soo rogaal celi dadkeenoo israacay baldaawada allah jirku isku dubaaxiyey baldaawada waxa weeyaan midnimada soomaaliyeed waa laga maarmaan meel kastoo dunida dacladeeda ka joogtaan anna waxaan idin leeyahay anigoo mukhtaar dulmidiid ah waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan halkani waa empire of the world media oo idiin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo taariikhda soomaalida iyo faaqidada wararka qaalaaba sidaad nooga barateen waxaanu soo garnaa goorahan oo kale maahdahan oo kale haddaba dhegaysti caawa wuxuu u daaran yahay barnaamijka faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo faaqidada wararka oo aanu ku soo qaadan doono qodobo kala duwan oo marka hore aanu halkan idinku soo diyaarinay ayaan insha allah soo qaadan doonaa laakiin waxaanu intaanan gudagelin waxaan marka hore ka cudur daaranayaa ama aan rabaa inaan maaragtay insha allah in barnaamijka aad noo sheer garaysaan
in dad badan ay soo galaan weli waad yartihiin barnaamijka waxaan bilaabayaa marka aad soo dhammaystirantaan dhammaantiin insha allah adula heestii galmudug allahu akbar galmudug israacdaye warde naga daaya ciyaarta saacadana sheegaanta xilligaana soo wacda saacadan lama qabto adeer caadi iska dhig saacadan ma qabtee facebook baan ku jiraa live baa lagu jiraa dadku waa sidee mayna eegayninba oo leh galmudug aha oo leh heestii qorqor baa idigu soo maqan daantadii qorqor daantan doonayna soo dhawaada meel kastoo dunida dacladeeda ka joogtaan dekadii hoobyo waa ku diyaar waxa qoorta la iskula jiraba oo qayb loo kala fadhiyaba oo nin walba qardaastiisii quman ahayd soo dhawaada maanta ay galmudug faan gaadhay wixii hore qubeen oo qoor loo doodo waa jigjiga oo hees hambaliyaa u iimaysay maamulka markii ugu horreysay ka hana qaaday galmudug wixii qoorta loo doodo gobolkan uu saameeyay internet soo diray fanaaniinta kala daran ee codad waxaa jigjiga ka soo diray fanaaniinta kala daran ee codadkoodu laga daba dhacay xariir axmed soo dhawaada halkani waa Empire of the World Media insha Allah waxaan imika ku soo dhawaaneynaa heestii qorqor iyo galmudug bulshadu kaydo roto halyeelo diirsadiyo أحمد وأنت دارني تعيا همل يبا قدو أحمد وأنت دارني تعيا همل يبا قدو قلبك كيديو بشيرو كيدو راتو علي لو دي سديو أحمد وأنت دارني تعيا همل يبا قدو أحمد وأنت دارني تعيا همل يبا قدو صوماليا أسرع صوماليا أسرع كما حول افتواء عبد الله كوديا عبد الله كوديا عبد الله كوديا عبد الله كوديا هريارة وخوديا ورور في عنبر إذا هي قلب تقولي لا شو بقى عبد الله كوديا عبد الله كوديا نشر قرية عبد الله كوديا عبد الله كوديا صوبة ده الله شير قرية سبسكرايبك يلاكتو لحقينا هاي قلب خيرنا أحمد كودة بلدقو كمال كيغا وبالمديد تي في جمال تماشركا الله قمد الله إيا ما شركا الله قمد الله
balan balla axmed ku dabaaldego dalka cayana diriiritiyo damaashadka laga maqlaa damaashadka laga maqlaa soomaaliya ha noolaato ha israacdo midnimo soo guulaysatee cadowgeed ha jabo haddaba halkaasaan qadarka muusiga ah aanu ku dhaafno halkani waa empire of the world media oo idiin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidaada siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo taariikhda soomaalida iyo faaqidaada wararka iyo taariikhda soomaalida ee carre edeg alaba sidaad nooga barateen barnaamijka faaqidaada siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo taariikhda soomaalida waxaanu kusoo qaadnaa ama aanu ku qaadaa dhignaa caawa waxaanu ku gorfayn doonaa faaqidaada siyaasadda iyo arrimaha bulshada madaxweynaha maamulka iskiis ku magacaabay somalilan mudane muuse biixi oo warbaahinta la hadlay isagoo markaasi dadweynaha marin habaabinaya oo doonaya in lay marin habaabiyaan iyadoo ay wararku ay sheegayaan guud ahaanba in ay magaalada ama maamulka somalilan ama deegaanada somalilan la daalaadhacayaan in cudurka coronaviruska guud ahaanba caalamku uu saameeyey iyadoo markaa wararku ay sheegayaan inay guud ahaanba timaado diyaaradaha ama ay u furan yihiin madaarada iyo xuduudaha dhinaca Ethiopia taasina ay keeni karto in uu caabuqa coronavirus ama maarta COVID-19 inuu ka soo galo iyadoo guud ahaan baan wada ogsoonahay caalamku inuu maanta la daalaadhacayo xanuunkaas iyadoo wadanada dhaqaalaha iyo horumarka gaaray ay maanta aad u saameeyay sida Talyaaniga iyo maarta wadanka Mareykanka waxaanu guud ahaanba ognahay markaasi iyadoo markaa ay ku guuldareysatay hab socodkii iyo ilaaladii maartay dalkeega iyadoo markaa guud ahaanba iyadoo axis ka dhiganaysa oo markaa ku cagsin garaynaysa maamulka federaalka Soomaaliya haddaba halkani waxa weeyaan waa empire of the world media oo idiin soo gudbinaya barnaamijka faaqidaada siyaasadda waxa kale oo aanu idiin haynaa madaxweynaha galmudug oo qoorqoor oo guud ahaanba safar ayaa safarkii ugu horeeyay tan iyo markii uu la doortay maanta uu amba baxay halka iyo hurshe iyo ilaa iyo xariiryaale xeraale guud ahaanba waxaa markaa lasoo sheegayaa inuu markaa safarkiisa halkaa uu ku tegay dad badan ay halkaa kusoo dhaweeyaan iyadana warar baan idin haynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabad ilaalinta ee Ethiopia iyo Eritrea ayaa shalay toole ka soo ambabaxay magaalada Luuq kadib markii ay la soo sheegay wararka naga soo gaaraya magaalada madaxda jubbada hoose ee Bu'aale in guud ahaanba ay soo gaadheen duleedka magaalada Bu'aale iyadoo guud ahaan dadku ay sheegayaan in maartay soo sheegsaansaan colaadeed ay halkaasi ka socoto ilaa imika lama soo sheegayo wax fariisa saara ama dagaal meesha ka curtay laakiin saansaan colaadeed oo aad u badan iyo hub ururis fara badan ayaa ka jirta waxa guud ahaanba iyadoo markaasi maamulka Jubbaland ay guud ahaanba markaa dagaala iyaguna ay la galeen iyagoo markaasi garab siinaya ciidamada Maleeshiyada dagaal baryahanba ka jiray oo markaasi ahaa dagaal beeleed ka jiray ay gacan siinayeen ciidamada inta badan halka ay ku mashquulsan yihiin haddaba iyadoo markaa guud ahaanba ay jiraan dagaalo fara badan oo ka dhacay deegaanadaasi oo guud ahaanba ay markaasi dagaal beeleed ahayd dagaal beeleedkaas oo markaasi dhibaatooyin fara badan laga soo gaarsiiyay beesha cawlamare oo markaa guud ahaan wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeegu waxay sheegayaan dadka nala soo xidhiidhay ay noo sheegeen in markaasi guud ahaanba ay isku soo hub urursadeen mar labaad cawlamare iyo maartay galjecel oo isuwan guud ahaan iyadoo markaasi ciidan aad u fara badan iyo hubeen ilaa 400 oo ciidana iyo hub fara badan oo markaa maartay hubka qaybihiisa kala duwan wata ay iyaguna markaasi soo rogaal celiyeen
iyadoo markaa guud ahaan magaalada Kismaayo iyo maartay Jubbada Hoose saansaan colaadeed ay guud ahaanba ka jirto. haddaba wararka ayaanu halka ku faaqidaynaa wararka aan faaqidaynaa ayay ka mid tahay. kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba Empire of the World Media oo idiin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo taariikhda Soomaalida alaba sidaad nooga barateen. haddaba waxaanu kusoo qaadadhigi doonaa marka hore qodobka koobaad ee ah madaxweynaha maamulka iskiis ku magacaabay Somaliland mudane Muuse Biixi oo markaa guud ahaanba barin habaabinaya majin habaabinaya dadweynaha iyadoo guud ahaanba baryahan dambe ay jireen in guud ahaan ay jiraan oo golo dhaqameedka maamulka iskiis ku magacaabay Somaliland guud ahaan oo golo dhaqameedkaasoo markaa ka hadlay in ay laga maarmaan tahay midnimada iyo maartay dib u isku noqoshada Soomaaliya gobolada waqooyi iyo koonfurta in la isku celiyo iyagoo markaa ku tilmaamay guud ahaanba maartay in maamulka Muuse Biixi uu maartay soo sheegeen ku guuldaraystay oo markaasi ay noqotay mid maartay wajagabax uu kala kulmay guud ahaan oo uu ku guuldaraystay. haddaba markaa iyadoo dadka qaarkoodna ay leeyihiin lagu kala duwan yahay fikrada oo qaarkoodna ay leeyihiin markaasi waxa jira maamulka Muuse Biixi iyo maartay waxa weyn sababta keentay in hogaamiye maartay dhaqameedyada ugu waaweyn ay ka mid yihiin Buurmadow iyo maartay soo sheegana suldaanka Habar Awal iyo suldaanka guud labada saddexdaan inoo saddexda dhadhaarey ugu dhow ee jeegaanta ee markaasi maamulka madaxtooyada Hargeysa looga taliya ay halkaasi sheer kula yihiin in ay maanta ku dhawaaqaan arintaas guud ahaan dadku waxay ka urinayaan in ay tahay Muuse Biixi iyo dawladda xukuumaddu inay arintaa ka dambeysay. ma la oran karaa haddaba su'aasha meesha taala inay arintaasi ka dambeysay oo uu Muuse Biixi arinkaasi ka dambeeyay oo arintaasi iyo maartay soo sheegeen Muuse Biixi oo kaliya maaha guud ahaanba sida ay wararku ay sheegayaan ama aan nagu soo gaarayaan ay sheegayaan in maartay soo sheeg maamulka xukuumadda Muuse Biixi oo markaa guud ahaanba ku fashilmay isagana in ilaalada maartay soo sheegay la dagaalanka coronavirus in maartay xuduudaha la xidho in airportka la xidho garoonada diyaaradaha la xidho in maartay gudaha ku guuldareystay isagoo lagu naasuujinayo guud ahaanba maartay soo sheegana shirkadda maartay soo sheegay markaasi oo uu gacanta ku hayo inaanu isagu uu adeer u yahay ama inaan cayladiisa ka soo jeeda uu gacanta ku hayo sidaa darteedna loo joojin waayay. marka dadweynuhu waxay leeyihiin inta badan waxa ka awood badan oo maartay danta guud waxa uu ka jeclaaday danta reerkiisa. waxa weeye marka waxa kaloo marka aanu qaada dhigaynaa guud ahaan qodob aanu qaada dhigi doonaa qodobka koobaad oo ah arin siyaasadaysan bay ahayd in midnimada Soomaaliya waa mid maamulka Muuse Biixi iyo Kulmiye ay marka horeba xusbi ka fureen kadibna ay u yagleeleen oo kadibna gogol xaadna ay u direen professorka oo ka tirsanaa xusbiga. waxa kaloo la sheegayaa markaasi ay dadweynuhuna ay guud ahaanba lagu eedeynaya ama se ay tahayba xaqiiqdu in arinta ma ku dhiiran karaan hogaamiye dhaqameedyada guud ahaan iyaga la jiray marka horeba iyaga la safnaa ee uu ka mid yahay Buurmadow iyo soo sheegana suldaanka Habar Awal in uu garab maro oo markaasi iyaga garab maro oo uu noqdo arin aynan xukuumaddu la ogeyn uu ku dhaqaaqo miyay dhici kartaa waa maya su'aasha meesha taala. arinta waa arin la isla ogyahay oo ay markaasi wadeen guud ahaan midnimadana maartay soo sheegeen in mar labaad loo ololeeyo ay tahay iyagoo guud ahaanba ku fashilmay bay dadku leeyihiin fikrada aanu nala soo wadaagay ay siyaasiyiintuba guud ahaan ay leeyihiin waxa weeye waa mid ay ku guuldaraysteen oo ay ku fashilantay xukuumaddu cadaaladii iyo sinaantii iyo isku wadkii ummadda gobolada waqooyi. sidaa darteed maadaama ay ku fashilmeen saxada siyaasadda iyo guud ahaanba maamulkeygii hab socodkeygii waxay markaa jeclaysteen marba in ay markaasi u hiloobaan oo ay u bedelaan siyaasadda ay bedelaan oo aan lagaga horeyn Muqdisho iyo koonfurta midna toona. haddaba su'aalaha meesha taala maxay tahay caaqibad xumada keenta in maanta uu madaxweynuhu anigu arrinkaas waxaan u aragnaa guud ahaanba inay tahay wax siyaasadaysan. arrin siyaasadaysan bay u eg tahay waxa weeyaan waa arrin maartay policy oo siyaasada oo marka la doonayo maadaama si aanan iskaga hor iman dadweynaha iyo maartay xukuumaddu si micnaha loo maartay xaaladda loo dejiyo awgeed ba arrin siyaasadaysan
oo markaa madaxweynuhu ku hadlayay maaragtay musabixi oo markaa guud ahaan lahaa annagu waxa weeyaan sharci baanu soo saarnay ciddii arrintaa ku xadgudubtana waa la xidhayaa arrintaa waxay guud ahaan dadku u arkaan inay arrin beena iska tahay inay tahay arrin maali awaala arrin ay tahay maaragtay iisoo sheeg waxa la doonaya in lagu majara habaabiyo bulshada ku dhaqan gobolada waqooyi oo markaa laakiin siyaasadooda gaarka ee hoosta ay ka wataan waxooga walaaqaan maamulada iyo odayadana la kulmayana ciddii la kulmaysa maamulka maaragtay soo sheeg iyadoo wararka kalena ay sheegayaan guud ahaanba iyadoo la bedelay siyaasadii maaragtay Soomaaliya oo guud ahaanba la kulankii Farmaajo loo bedelay ra'iisul wasaaraha iyo waxa kulmi doona Musabixi iyo oo guud ahaan iyo oday dhaqameedyada oo la doonayo iyadoo markaa Musabixi uu wajiga dadbanayo odayadana loo geyn doono markaasi wararkana soo gaaray waa warar xaqiiqa oo markaa naga soo gaaray guud ahaan oo ognahay arrimahaas socda laakiin waxa weeyaan guud ahaan maxay tahay ummadda Soomaaliyeed runta xaqiiqda marka loo dhaqaaqo ummadda Soomaaliyeed inay mar labaad isku soo noqoto waa laga maarmaan waxa weeyaan wax hor istaagi karaan haba yaraatee ma jirto fikrad wanaagsan ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan inay isku soo noqoto inay danteeda wada garato in maartay soo sheegay calool xaadato in maartay wanaagooga iyo sharaftooda iyo cisabkooda isku soo noqoto waa wax hor istaagi kara haba yaraatee ma jirto waa bir waxa weeyaan soo sheeg lagama mataabtaan weeyaan waa lagama maarmaan waa arrin muhiima waa first priority waxa la siinayaa in maartay ummadda waayahay su'aasha markaa meesha taala maxay tahay boqolkiiba 90 ummaddu maanta gobolada waqooyi ku dhaqan hadii cod laga qaado waxaan aaminsanahay boqolkiiba 90 inay yihiin maadaama oday dhaqameedyadoodii ay taageerayaan xukuumaddiina ay hoosta ka baqanaysa laakiin xoogaa waa la isku maartay soo sheegan in yar baa jirta oo in cabsiya oo ay xukuumaddu ka cabsanayso in dadku kacdoon ku sameeyaan dadkuna guud ahaanba waxa weeyaan qalbigoodu wada buluug weeyaan waa sida la wada aaminsan yahay odayaduna waxa weeyaan arrimaday ku dhaqmayaan arrin aad u wanaagsan ummadda Soomaaliyeed in la isku soo celiyo mar labaad isku hiloobay mar labaad la isku soo celiyo in wanaagooga iyo sharaftoodii iyo dhaqaalahooga iyo horumarkooga laga shaqeeyo maadaama ay maartay xukuumadda iyo maamulka ay sameysteen ku fashilantay in ummadan la isku mado transparency-googa iyo maartay cadaaladooga iyo amnigooga iyo systemkoogaba waxaan wada ogsoonahay guud ahaan saddexda qodob ee ugu waaweynba maamulka iskiis ku magacaabay Somaliland ama maamulka Musabixi ee jeegaamaysan way ku fashilmeen koow cadaaladii waa ku fashilmeen waxa transparency-gii wada lahaanshihii wax wada lahaana waa lagu fashilmay hab maamulkii dawladeed iyo haykalkii dawlad maamul na waa lagu fashilmay sidaa darteed maadaama ay tahay ila meeraysa lagu jiri maayo waayo ka weynta ummadda Soomaaliya gobolada waqooyi in ila meeraysa lagu jiro in maartay qobcad yar lagu haysto 30 sanadood in daasada loo qaraaco kala yar wax suurta galaya maaha marka waxa ay muhiimka ah arintana muhiim waana arrimaha ifka ka soo ifbaxaya guud ahaanna way doonayaan way danaynayaan habeen walba iyaga telefoonka ku hadla arinta waxa cadeeyay boqor buun madow oo yiri iyaga iska gadhow habeen walba telefoonkaas loo kala badiyaa buu yiri beena ma wax jira oo telefoonkaas lagu hadlaa oo maartay si kastaba ahaatee qaab kastaba ha u kulmaan oo ha loo hadlo wax weyn waa la wada hadlaa laakiin waa maxay dad kala ma jira habaabinaya xaqiiqda marka in dadka runta loo sheega wanaagsan mujtamacan in la daalay way soo daaleen waqti dheer bay soo daaleen in la wareeriyo oo la dawaqeeyana maaha waxa weey barnaamijyada halkaasi waxa weeyaan maamulka iskiis ku magacaabay Somaliland waxa kale oo ku fashilmay habu socodka iyo haykalkii maartay ilaalada ummadan oo protection-kooga iyo protector-kooga ilaaladoodii iyo xanaaneyntoodiiba guud ahaan cudurrada adduunka maanta socda in ay laga ilaaliyo waxa weeyaan iyadoo si caqsiya in dad gaar ah la siiyo oo loo siiyo koota loogu xidho oo la yiraahdo maartay airport-ku ma xidhmayo ee dhaqaalihii waxa burburaya inankan adeerka u hay wax soconaya maaha waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed maartay gobolada waqooyi degan in arinta ay ka tashadaan mudaharaad ka sameeyaan waxa weeyaan shirkadan Ethiopian Airline iyo Dubai Imaaraadka laga leeyahay maartay Dubai Airways labaduba waxa weeyaan waxa gacanta ku hayo shirkada iskale inuu adeer u yahay Musabixi ama inankiisa ayaaba maartay arintaas shirkadaas wax kule oo markaasi wakiil u ah oo u jooga Somaliland waxaanu markaa aaminsanahay guud ahaanba in la joojin waayo iyadoo xukuumadihii maartay soo sheegay awoodaha lahaa dhaqaalaha lahaa wadamadii Talyaaniga iyo Mareykanka la daalaadhacayaan iyo Europeankii oo dhaqaalahooga iyo wadamada G8 ka ahaa G20 ka ahaa ay la daalaadhacayaan oo ay guud ahaanba joojiyeen in guryaha dadka guryahooga ay joogaan xitaa soo ay ku soo rogeen oo bando laga dhigay
marka in maanta ay maamulka iskiis ku magacaabay somalilandna airboordada maftuux uu ka dhigo oo yidhaaho maaragtay customiskii maaragtay iisoo sheegeen wajaalana uu iska furnaado xagga kalena ay furnaato meel kastaba ay furnaadaan waxay keenaysaan taasi in caabuqu uu kordho iyadoo maanta aanan la awoodi karaynin daawo keliyo lagu baaro ayna haysan oon ognahay labadii keese laga helay in laga soo baaray Kenya dadkan ma Kenya laga soo wada baaraya marka wax suurtagelaya maaha dhaqaale ahaan maartay soo sheegeen ahaan iyo maartay awood caafimaad oo maanta ay Somaliland iskaga caawin kartaa midna toona ma jirto ama iskaga caabin karto xanuunkan mar hadduu soo galo waa khatarteedu uu leeyahay guud ahaan waxa arinta marka waxa weeyaan nin ruux xaqiiqda marka ninna dhalashu kugu dhagay baa leeyay kugu dhagaya ninna duuni buu kugu dhagay musabixi nin maartay dan iyo duuni iyo danale danihiisa dadkiisa iyo ummadan uu marka ummadda uma aha madaxweyne uma wada dad gaar ah ayaa meesha keensaday anu sana aaminsanahay cidaas ayuu ku shaqeeyaa amaamiirtoodana lagu shaqeeyaa waxa weeye business private sector baa arintan jirta inuu Sacuudiya inamadan uu adeerka u yahay shirkadaha kale iska haystay ku xiran ayaa arintan loo daneynaya waynu ognahay waxa weeye suuqa xorta ah wax suuq xor oo la yiraahdo ma jiraan suuqa cid buu xidhay gaar shirkada gaar uu xidhay daabshiil buu xidhay inuu Sacuud buu xidhay kan uu xidhay marka sidaa darteed waxa weeye coronavirus-ku in maarta xuduudaha la xidho maanta ay noqotay aad bayna ugu fashilmeen arintaas waa arin ay xukuumadda marka iskiis ku magacaawday Somaliland ay ku fashilantay ayaan leenahay guud ahaan waxa weeyaan arintaas waa arin aad maartay ummaddu inay dantooda u kacaan iyaga la doonaya in mudaharaadyo la sameeyo magaalada Hargeysa Boorama guud ahaanba waxa kale oo iyadana taabanaya magaalada gobolka Awdal oo guud ahaan la sheegayo maartay isbitaal ku yaala in karantiimeyn lagu sameeyo waxa la xanuun meel laga soo qaaday dad kale oo la geenayo meel kale waxa weeyaan xarunta karantiimeynta hadii la sameeyo caasimada magaalada Hargeysa gudaheega meel ka baxsan warmaashan karantiimeynta laga dhigayo maartay soo sheegan hoteelada laga dhigayo oo wax adduunka lala yaabay weeyaan meel bulshadan ay ku dhaqantay oo hoteela oo ay degan yihiin oo maartay private business private oo maartay soo sheeg cid gaar ay leeyihiin in la geeyo xanuunka la yiraahdo halkan ku karantiimeynayna oo wax adduunka lala yaabay weeyaan oo waxaan hore loo arag weeyaan waa maamul xumada iyo system xumada guud ahaan waxa weeyaan iyadoo markaas maftuux yihiin dadkii maartay soo sheeg iyadoo wadanada kale ay waaqeen in ay ka saarayaan dadka ajnabiga waxay Somaliland in laga saaro dadka ajnabiga ee jooga guud ahaan in maartay la sugo ayay tahay guud ahaan ba maartay soo sheeg amni xuduudaha iyo maartay soo sheeg garoonada diyaaradahana la xidho oo isku socodka guud ahaan la yareeyo la joojiyo dhaqaaluhu wixii soo galaya dadkan awalba meelaha ka soo galayeen way ka soo galayeen taasa muhiima laakiin waxa weeyaan way ku guuldareysatay waxa weeye marka dadku inay arinka u fadhiyaan ma waa inay mudaharaadyo sameeyaan waa inay danooga kacaan waa inay demonstration sameeyaan oo ay arinta ku dalbanayaan qasabna kaga dhigaan dawladda inay xidho oo aanin maartay soo sheegay naasnuujinta inankiisu naasnuujinaya inamadooda ku laga yeeli maayo waxa soo soconaya maaha waa yahay taasan kaga baxaya iyada waxaan markaa gali doonaa barnaamijka qaybtiisa kale ayaan galaya insha Allah hadoo leeyahay oo markaasi madaxweyne qorqor baan gali doonaa heestii baan markaa ku nasanaynaa barnaamijka noo share gareey aad baad u yartiin 12 qof wax maartay update la siiyo oo dad loola hadla maaha baalka inoo share gareeya shareta inoogu qabta share tu xaqiina inoo share gareeya gruubiyada iyo waxa ku tuura ولا صلينا على السلام وكان على نوقو انت يا قرنكينا ايو دستور قدامنا دو ديغان قديم هلو ديسي وليغا كودادا ابنيغا ديغان قديم هلو ديسي وليغا كودادا ابنيغا نوشر قريه وكان على نوقو انت يا قرنكينا ايو نوشر قريه ديغان قديم هلو ديسي وليغا كودادا ابنيغا ديغان قديم هلو ديسي وليغا كودادا ابنيغا
boqor booq aad baan ku salaamaya inoo sheer gara walaal dadii shacabkaaga oo qaadiya samir lahow dagaalada sokeeyayo aragga damiyo dariska isku soo dhowee dariska isku soo dhowee dariska isku soo dhowee dariska isku soo dhowee dadii shacabkaaga oo qaadiya samir lahow dagaalada sokeeyayo aragga damiyo dariska isku soo dhowee dariska isku soo dhowee dariska isku soo dhowee dariska isku soo dhowee dalreebi cadaada iyo dadkii reer balanbala axmedu ku dabaaldago galka cayana diriiritiyo damaashadka inoo sheer garaya alaga maqlaa damaashadka alaga maqlaa dalreebi cadaada iyo dalkii reer balanbala axmedu ku dabaaldago galka cayana diriiritiyo damaashadka alaga maqlaa damaashadka alaga maqlaa halkaasina waxaanu maaragtay kusoo gabagabaynay heestii oo maaragtay ay noo qaadayeen maaragtay kooxda reer jigjiga oo markaasi heestii galmudug ee qorqoor ay markaasi u qaadeen halkan waa empire of the world media oo idiin soo gudbinaya barnaamijka faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo taariikhda soomaalida ee carre edeg waxaanu barnaamijka kaga jirnaa gudaha ayaanu bartamaha ayaan barnaamijka kaga jirnaa waxaanu markaa imikana soo qaadan doonaa madaxweynaha maamulka goboleedka galmudug ayaa safarkiisii ugu horreeyey tan iyo intii markii uu la doortay maanta ka ambabaxay oo markaa si booqashaa degmada horshe iyo xeraale tegay kadibna markaas iyagoo markaa ay ku weheliyaan maamulkiisa guud ahaan madaxweyne ku-xigeenka iyo maaragtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug oo markaa halkaa gaadhay iyo war baan idiga haynaa insha allah markaa clip baan idiga haynaa clipkaas ayaan idiin soo sii deynaynaa insha allah waxaana nala soo wadaagay wariyaha iyaga noo fadhiya halkaasi aad baan idiin salaamaynaa meel kastoo dunida dacalada ka joogtaan la socda barnaamijka faaqidada siyaasadda iyo arrimaha bulshada ciddii u dhaaftana waxa ay maaragtay ka heli kartaa janalka dulmidiid tv janal oo markaa subscribe-ka aada noo saaraysaan insha allah laagtana hanaga ilaawina insha allah ciddii doonaysaan waxa weeyaan gambaleelka taabo si aad wararka u hesho bar walba maaragtay cusub inoo sheer gareeya baalka inoo sheer gareeya si dadku ay u bataan aad bay dadku u yar yihiin dadku waxay jecel yihiin meel la isku shidayo oo ya meel aad la isku soo dhaweyntii qoorqoor baan imikana aada u daawanaynaa insha allah daleeraha iyo wuxuu daarnaa booqashadiisaas axmed cabdi kaariye qoorqoor oo safarkiisii ugu horreeyey maanta kaga soo ambabaxay magaalada dhuusamareed tan iyo markii la doortay oo halkaas uu ku sugnaa ayaa soo gaaray deegaanada huurshe iyo xeraale ee waqooyiga gobolka galgaduud safarka madaxweynaha ayaa waxa uu la xiriiray sidii loo dhammaystiri lahaa heshiis halkan dadka ku nool ay horey u kala dhex dhigtay dowladda federaalka kadib safar ra-iisul wasaaraha soomaaliya halkan uu dhowr jeer ku yimid kaasi oo lagu xalinayay dagaalo qabiil oo halkan ka dhacay kuwaasi oo galaaftay nolosha in ka badan 70 ruux madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaa safarkiisan ku wehelinayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada xubno ka tirsan baarlamaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan guddigii dib heshiisiinta galmudug oo hawshii ugu badneed halkan ka qabtay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada deegaankan ku matala baarlamaanka galmudug
oo ku soo dhaweeyay madaxweynaha deegaanada xeraale iyo huurshe ayaa tilmaamay ahmiyadda ay lahayd nabadii halkan ay ka dhalisay dowladda federaalka iyo sida ay uga mahad celinayaan madaxweynaha galmudug doorka uu ku yeelanaya dhammaystirka heshiiskaasi. ilaahay nasiibkan wanaagsan uuna siiyey waa mahad ilaahay waana fursad marna soo martay ilaahayna nagula xisaabtamahayo dowlad nabadii naga iibisay dhaqaale nagu siisay dadkii dhintay sabir siisay ammaan fariisisay waxaa laala wixii wanaag oo qof ku sabri karo baryo iyo madax salaax samaysay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo safarkiisii koobaad ka dhigay dhammaystirka heshiiska reer fiq maxamed guddiga dib heshiisiinta heer qaran iyo heer beeleedba aad baan ugu mahad celinaynaa maanta nabadda iyo sidaa noogu timaadeen waa idinku mahad ilaah baa mahad iska leh mahadda bini'aadnimo waa idin mahad celinaynaa si wacan baan mar labaad idinku mahad celinaynaa waxaa mahad ku lahaa oo arrintan meel gaadhsiiyey ra-iisul wasaare khayre ayaa meel gaadhsiiyey iyadoo meelna guntami weyday oo meel tegi weyday khayraa guntay guddigan dib u heshiisiinto aniga hadda ii muuqdo doctor baadiyow iyo cabdiwaayeel iyo ku jiraan baa bilaabay waagii ra-iisul wasaaruhu noo yimidna qof arki kara qof xabad ku dhowraya maahane ma uu jirin marka ilaahaybana waa uga mahad celinaynaa cid kasta oo nabadaa ka qayb qaadatana waa uga mahad celinaynaa waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan annaguna aqballo nabadii aan qaadanay sidii naloola qabtay iyo shaqada dambe inta hartayna aan idinkala shaqaynayna guddiga guddoomiyihii guddiga dib u heshiisiinta galmudug doctor cabdiraxmaan baadiyow ayaa waxa uu halkan ka sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo xukuumadduba usoo wakiilatay in qoysaska halkan ku nool ee waxyeeladu saamaynta ku yeelatay la gaarsiiyo lacagihii dowladdu ay hore ugu qoondayday kuwaasi oo maantaba halkan lagu gaarsiiyey ama lagu siiyey dadkii waxyeeladu gaartay qoysaskooda. haddaanaha guddigii dib u heshiisiinta waxaan u nimiday fariintii ra-iisul wasaaraha muxuu ahay xasan cali khayre iyo ballanqaadkii ou qaaday in dadkii dhibaatadu soo gaartay 79 ruux ahay sabarsiintoodii wixii loogu sii dhiibay ayaan wadnaa marka waxaa waaye salaana waa idinkaaga wadnaa ra-iisul wasaarihii muxuu ahaa sabarsiintii la idiin soo dhiibana waa idin wadnaa waana idin qaybinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaa laakiin nasiib wanaag ah inaan ku soo noqonnay huurshe iyo xeeraale dadkii oo nabad ah iyo dalkii oo madaxweyne leh. ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo in ka badan 70 ruux oo qoysaskoodii halkan ay ku sugnaayeen kuwaasi oo ka mid ah dadkii waxyeeladu gaartay halkan kula hadlay ayaa tilmaamay in galmudug ay door muhiim ah ka qaadan doonto ilaalinta nabadii halkan laga gaaray waxaana uu ku bogaadiyey dadka halkan ku nool sida ay kaga mid dhaliyeen qalamihii hore loo gaaray. dib u heshiisiintii iyo nabadii la isugu yimid meel fiican bay maraysaa maantay gabangaba noo tahay maantaan u dardaarmaynaa sidaanu hore u sheegnay inta dib u heshiisiintii dhammayno oo wixii cawad celin iyo caymo laga soo qaaday agoomihii iyo dadkii dhibaatada ku dhacday loo soo qaaday bixinno oo la ballanna ka tegi mayno waan kontaroolaynaa waan la soconaynaa ciidamadii amnigaa joogaya garsoorkaa u diyaar ah intaad qofi dhibaato geysato uga harmayno ilaa idinkii ma aqbalayno dhiig dambe oo walaal sidaan hore u sheegnay inuu ku daato xaqdarro inuu ku daato dulmi ma aqbalayno waxgaradka ugaasiyada culamaa udiinka odayaasha dhammaan waxgalka bulshada waxaan ka codsanaynaa in lagala shaqeeyo oo dowladda galmudug lagala shaqeeyo arrintaa inay sugnaato oo siday maanta u dhammaatay ay ku dhammaato insha allah. deegaanada huurshe iyo xeraale oo nabadayntooda muddo bila ah ay qaadatay ayaa dowladda federaalku waxay ku bixiday juhdi aad u ballaaran waxaana halkan xilligii ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu soo gaarayay isku fadhiyey maleeshiya beeledyo markii dambe ka mid noqday ciidanka qaranka oo dowladdu ay u tababartay in ay ku biiraan qaybaha kala duwan ee ciidamada waxaana sidoo kale hubkii lagu dagaalamay ee deegaanada yaalay si rasmi ah ula wareegay dowladda federaalka soomaaliya. cabdullahi warsamo raable Somali News TV. halkaasina wariyaha wuxuu ahaa Somali News TV oo insha Allah markaasi inoo faahfaahinayay markaasi boqoshadii ra-iisul wasaare maartay madaxweynaha maamul goboleedka galmudug Masar Qoorqoor ribikana waxaan maartay insha Allah soo qaadan doonaa maartay insha Allah
qaybta kale barnaamijka ayaan gudageli doonaa insha allah hadduu la ilaaho inoo sheer gareeya barnaamijka inoo sheer gareeya qadri musugaan maartay ku suganaa ilaa inta dadku soo gariyaan dadka inoo sheer gareeya bashaartaynu ku wada hadalnaa inoo sheer gareeya baalka oo maartay dad badanna ay noo soo galaan subscribe-ka ii saara dulmudin tv channel booqo shiriskana taabo si aad wararka u hesho mar walba iminkana waxa waye halkani waa Empire of the World Media idin soo gudbinaya barnaamijkii faaqidada siyaasadda ee arrimaha bulshada oo aan bartamaha kaga jirnay oo gabagabadiisii iminka aan ku guda jirno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabad ilaalinta Itoobiya iyo Eritrea ayaa shalay toole ka soo amabaxay magaalada Luuq kadibna markii ay u soo wajahnaayeen xagga iyo jiida Bu'aale caasimada jubbada hoose ee magaalada Bu'aale iyadoo markaa guud ahaanba istaraatiijiyada laga leeyahay tahay in la qabto guud ahaan si xasiloonida iyo nabadda dib loogu soo celin lahaa haddaba guud ahaan waxaanu leenahay halkaasi waxaa ka jira maamul aad u fool xun oo ah Axmed Madoobe oo noqday maartay dhiig miirata ah waxaanu leenahay Axmed Madoobe waa nin dhiig miirata ah waa nin dhib badan oo in badan dhibaatooyin fara badan ka geystay oo ka soo mid ahaa al-shabaab iyo qolooyinkii maxkamadaha ku jiray waxaanu aaminsanahay guud ahaanba Axmed Madoobe iyo ninka la yiraahdo maartay Axmed Janan labaduba waxa weeyaan waa laba maartay dambiila dagaala waxa kale oo isaguna maartay dambiyo badan ka geystay meeshaasi darwiish oo isaguna dagaalka imika ku jira oo aaminsan meeshan istiigaameyntii Falastiiniyiinta ka wada oo dagaalo badan halkaasi marka dad badan ku laayay dad badan oo shiciba oo maartay maatiyo oo waxba geysan ma xagee lagu arki jiray maati la laayo la dilo dagaalka xitaa marka lagu jiro ayay ahayd in aan birimageydada aan la taaban waxa weeyaan meeshaasi dhibaatooyin fara badan oo marka beesha cawlamale loo geystay 50 ilaa 55 xagga dambe laga dilay 75 qof dilku guud ahaan ku dhow yahay iyadoo marka iyaguna imika soo rogol caadinaya colaado badan jiraan ilaahay ka maartay bogowga burcada isku mariyo laakiin dambiga iyo dhibaatooyinkaasi waxa iskale in laga qabtano u baahan Axmed Madoobe iyo maleeshiyadiisa hogaamiye kooxeedka ee aniga amarkayga hadii la qaadan waayo la qaadan maayo amarkaaga ummadda Soomaaliyeed iyaga iskala deegaankan cid ay uga dhageysanayaan ma jirto qabiil lama liin qol qasaxna ma liin qolana ma liin adigu dhinac noo dhaaf adigu waxa weeyaan nin kasta oo maartay daba dhilifa oo dabada ku wata Kenya iyo wadana daba dhilif u ahaa waa la qabanaya haday danay ku tahay haday say ku tahay markii dooniyad sheegaysaa sidoo doonaga isagiiba meel uu maraba la oo dadkiisii maara oo la danay muxuu loo diray maartay doonyo waxa runaantii meesha jira markaasi arinta halka ka jirta waa arin aad u qaldan waa arin aad u fool xun ummadda Soomaaliyeedna aan ku fiicnayn aad baan u dhaleecaynayna waxaan leenahay Axmed Madoobe waxa weeye waa mujrim weeyaan dhawaanna waa laga qabanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee maartay harima cadna way qabanayaan insha Allah dhawaan ba gacanta lagu dhigi doonaa waxaan idin hayaa markaasi update-kaas inay ciidamadu ay meel 5 kilomitir u jirta duleedka magaalada Bu'aale ay joogaan oo update ayaan idin hayaa waxa weeyaan wax dagaal oo wali ka dhacay ma jiro laakiin waa la isku urursanayaa dadkii waxa weeyaan ciidamada maartay Axmed Madoobe ma joogaan guud ahaan waa ka carareen iyadoo guud ahaan la sheegay in Raaskambooni iyo meelaha dagaalada ka socdaan ay ku maqan yihiin jubbada Kismaayo Axmed Madoobe wuxuu ku dhuumanaya hotel qariye ba ka dhacday hadaynan itaakuleen Kenya u tagay Uhuru Kenyatta wuxuu ku yiri wana hubna kuma siinayo rasaasta kuma siinayo niyo bartay la dhaaf ciidan dambe iga dhinta Soomaaliyana lagama yaabo kuma siinayo dhaaf bal guud
wuxuu ku dhuumanayaa hotel haddaa aniguna tegi maayo buu yidhi hadday sidaa tahay maana haddaa meesha laygu dilayaa axmed madoobe waa ku daayey axmed madoobe waa ku daayey weligii baa ku dhudhuunta wadamada shisheeye waa la soo qabanay kismaayo iyo jubbadana waxaan idii hayaa in gacanta lagu dhigayo dhowaan dadka dhibaatada la gaarsiiyeyna la qaban doono oo maarata iisoo sheegana gacan bira lagu soo qaban doono ciddii u gaarsiisay ciidamadan maarata axmed madoobe uu haystana waa la qabanayaa dhowaan waa la qabanayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed cid uma bacdhigi kartaa ma jirto ciidamadii maaragtay baarame ilitariya iyo etoobiya dagaalka meeshii u dhexaysay joogay ayaa la keeno meeshaa jooga maanta 15,000 oo ciidana hal marba gacanta saa loogu dhigayaa ciidanka saanadaha ciidankay wataan iyo qalabkay wataan diyaarada xitaa la wato lagu duqeynaya ila kabtaro etoobiya waxa ay u aaba yeelaysaa ma jirto looma aaba yeelaya axmed madoobe baryo dambe ma jirto heegada goday iyo dhulkaa kasoo ama baxdee kasoo dagaal tagtayna gacmaa lagu dhigaya maleeshiyada ee meesha ku dhuumanaya ee uu meesha ku hayay qabiilka uu ku hayo war wallaahi inayna soomaali qabiil ayna waxba ugu deeqaynin deegaankan dad soomaaliya weligeed wada degnayno inuu wada degnaanaya ama maarta qaloocan ka imow ama goday ka imow ama futada aabaha ka imow meesha soomaali baa iskale cid looga baryayaana ma jirto amnigii iyo maartay nabadda iyo kala dambayntana la baryi maayo cid lama baryaya ma jirto dhalinyaro jaamacada ka baxay oo mastera ayaa naftooda u huraya oo inay kala dambayntii nabad iyo dib u soo celintii hankii Soomaaliyeed bay ku dhaarteen oo ay ballan ku qaadeen in Soomaaliya ay nabadeedii iyo hiigsigeega ku soo celiyeen amnigoogii 30 sanadood baan dagaal iyo dhibaato ku jirnay dhalinyaro ayaa maanta u kacay yara ayaa u kacay odayada xun ee sulaxa ah ee u sheegaya dadka ee la kan ana reer hebel iyo kan reerkaan ku duulno reer ku duuli dambaa ma jirto nin walba deegaankiisa uu deganaan doonaa maamul iyo system baa loo samayn doonaa maamul goboleedka ma jirto cid loo naasnuujin doono dambana ma jiri doonaa cadaalad iyo wanaag baa lagu dadka maartay lagu hagi doonaa maartay soo sheeg dhaqaale iyo economic iyo waxa lagu tartami doonaa arintaas dhici doonta insha Allah marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay hal la taageero mar walba maartay wanaaga iyo wada jirka iyo dawladda maartay Soomaaliya federaalka Soomaaliya dadaalo fara badan iyo ay maanta gaadhay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay awood saareen waxa weeye si looga saaro ciidamada ilaalada ee shisheeye looga saaro wadanka si wadankeenu uu markaas u noqdo amnigiisa iyo securitygiisa gacanta ay dawladda federaalka u hayso oo aan u noqono dad maartay markaasi awoodii Soomaaliya iyo xoogga dalka Soomaaliyeed ay lahaayeen dib loogu soo celiyo waa mid aan aad soo weynayno waa mid aad u jecelnahay waa mid aan garab ku siinayno dawladda federaalka Soomaaliya nabad iyo nolol baan ku siinaynaa nabad iyo nolol weeyaan wajaa xaqa wasaxaqa baadila weeyaan haddii xaqa imaado baadil ku taga axmed madoobe waa baadil dadkana baadil buu ku haystay waa nin baad ka qaadayay ummadda islaanaan tamaadhada gada lacagta laga qaadayay buu ku fadhiyaa oo wadamada kale ku tagaa baadil weeyaan baadil buu ku fadhiyaa qabiil baa dabada ku wata wallahi inay Soomaali qabiil isku raaci doonin ogaadeen baad sheegaysaa haddaad isku wada raacdaan cid idiga yeelaysaa ma jirto Soomaalinimada dadkan deeqda ee anaga qabiilnimo deeqo ummadda Soomaaliyeed in la isku wado la isku keeno ay nin walba deegaankaaga haddaad badanto deegaan leedahay waxa weey doorasho xul iyo xalaal la gali doonaa ku soo bax markaa one vote one face one vote baa la geliyaa cod iyo maarto qof iyo cod baa la geli doonaa taasaa lagu kala bixi doonaa marka maamul kastana waxa loo sameyn doonaa istiraatiijiyadiisii dhaqaale iyo maartay deega ayaa loo sameyn doonaa kaabayaashiisa dhaqaale loo sameyn doonaa dawladda federaalka Soomaaliya istiraatiijiyadeeda iyo maartay road mapka ay wado iyo qorshaha u dejisan ee baraanka u dejisan noocaas weeyaan waxa weyn waa nooca la doonayo maanta in hobyana lagu dhiso maartay dekedan lagu dhasho baraawe dekada maartay Soomaaliya dib habeen lagu sameeyo garoona loo dhiso dadkan horumar ay gaaraan waxa weeyaan waxa la isku leeyahay la isku dilay waa buffertiga iyo gaajada weeyaan wax kala ma aha qabiil kale wuxuu ku dooday waa buffertiga iyo gaajada reerka yeeran ka beera badani yeena ka xoolo badan weeyaan waxa weeyaan waxaas ma jiraan walaalaha isjecel way xoolo badiyaan walaalaha isnacib laakiin way xoolo yareeyaan sababta keentay 30 sano 40 sano inaynu qeyrkeen ka hadno wadamadii aanu u raadinaynay xorriyadooda u raadinaynay aanu noqono inay dadkayga ku baaba'aan oo lagu laayo maalin walba South Africa waad ogtiin Mozambique iyo maarta Angola iyo Namibia iyo inay dadka jeelasha ku wada jireen
waad ogtiin in dadka guud ahaanba ay tahriib ku soo wada baxeen oo liibiya oo kaa liidatay oo soomaaliya ka liidatay ay u xidhan yihiin wax loo dulqaadan doono maaha dhalinyaraduna u dulqaadan maayaan sidaa darteed bay ay xil isku qaadeen oo isagoo bachelor degreegii qaatay isagoo masterkii qaatay isagoo PhD qoriga qaatay marka axmed madoobe laga dhageysan maayo mar dambe wallahi aan laga dhageysanaynin oo danay baan laga dhageysanaynin oo aan dib dambe looga dhageysanayn baa wallahi annaguna garab baanu ku siinaynaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna dhulkan way sugi doonaan dowladda federaalka Soomaaliyeed oo jirto maamul oo wanaagsanna waa laga taagayaa taa qasab weeye taasi waa laga maarmaan Soomaaliya ma baraysa cid aan barayna oo dambe ma jirto wax la barayo dambe iyo baryootan dambe way dhamaatay ummadda dhalinyarada inay tahriibaan odayaduna ay dadka gasaaraan oo ay imaado yiraahdo faroole aniga geedkayga lagu imaado dib dambe loo dhageysan maayo geetimireedkaygii baan ma jeerteen ku fariisan doonaa dib dambe u dhici mayso taasi Puntlandna waa loo soo socdaa كذلك سومالي لأن مقدس وحي ولي يقول بينها مقدس مقدس لا يراه مجرو كتاب القرآن كان مقدسة ومدة وذا شركة يجي وناجيها مقدسة إن لا يسكدروا أو لا يسكدلوا وحرام ويان كتاب كفر يا وام حنين أن دم بقلين عبد الولي ما دم بوجيستي عور حريض ضد دليل بالسوسي داي حقا بكاسم حق بمركا إلهي والله دول كنا لقينا يا والله مصبيحي وحسوسي داي نادركي oo dad qowracay maatiya oo guriga fadhiyo iska fadhiyo xooloogi haysto xalay toole nabad ku waaray intuu u soo dhacay buu qowracay oo midada mariyay kaas uu yiri dambi ma gelin oo amadaniya dambi madaniya weeyaan madaxweynaha cafiye ma darkayso weeye ma cafi kara madaxweynuhu criminal commitment weeyaan waa dambiile wali laga ma heshiinin maxkamad lama soo saarin xukun kumu dhicin judgment lagu sameeyay awar xareed ma jiro حكم كيسة ما لما قلدقنا لما سارين ما صدح سنة على حكومة وأفر سنة وحدنا ما 8 سنة على حدي ما على حكومة بيم وين وحاسم مركا dadka noocaas oo miran baa laga qabanaya hogaamiye kooxeedyada noocaas oo miran baa laga qabanaya xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas loo sameeyay kuwaas lagu sifeynaya wallahi nin kastaba sanka u daloola sanka loo daloolinaya Axmed Madoobe sanka loo daloolinaya danayna sanka loo daloolinaya tanaga maran qasab weeyaan dawladda maamulka waxa weeyaan dawladda maamul goboleedyadu ma aha waxa la yiraahdo waxa weeyaan xad bay leeyihiin xadkooda aad ku eekan doonta waxa weey systemka iyo roadmapka lagu daray ee federalismka ba si qaldan baan u naqaana aniga la macaamiloonayo dawladda international community-ga awoodda ku siisa waa maxay who is give the permission ka ku siinaya iyo sharciga legislation ka ku siinaya muxuu yahay halku ka yimid xageed ka keentay dawladda federaalka Soomaaliya xaq u leh inay xiriir la yeelato oo ay wadankeyga relationka cid ay la sameeysanayso iyo dhaqaale ahaan ay la sameeysanayso iyaday u taala adigu waxa tahay federal baad waxa weeyaan maamul goboleed baad tahay dawladda federaalka Soomaaliya ayaad hoos imanaysaa waxa weeyaan waxaad ku oo maartay aad ku shaqeynaysaa si dastuurka iyo constitutionka Soomaaliya wuxuu dhigay baad ku shaqeynaysaa إيرو إنت لاقينا تحد قدوم تلو مبار أنا دولة حدي الله سمي سنة يوريليشن الله سمينا يعيد كاي يلي سامجته ومعي ما دولة باطع هو قام يكون حياة كستابا مالك سنتو عيدا كان صددت كدونا ينو كعبوريا ويدا ماتي تاسي ديب دنبالو دقيسان مايو ومدى الصومالية نوي سودا شي صدن سنضود بانو دقال يديب كجرني ونقحر كجرني ديب دنبالو مغلي ماينو إنما هذا يرير إداء ما أنت مارتي نفتو ذو هريا إسقو باتشرال دقريقي قاتي ماستر كي هايستا PhD أيو قريقا قاتي أو يريدال كيغان دفاعية نبضين تي تاسا حقا ها دالكي سنينكو إنو وحو قشدو بعد مارتي رقاني كي لها دبضها يو مكعو واحد دبضها يستوحي ويا وادتك مارتي دنليدا نوعاس عبد الشكور وكذلك ولمد وحويا ودنليدا حسن شيخ دنلي بوها شيخ شريف دنلي بوها لما انتو دنلي سياسيين تدنليدا دونيا سياسيين تفشل ماي دونيا كو حسابتمينا halkan aan leenahay mudulood baanay maniin qabiili qoramaniin shalay toolamaad mudulood uqabad Ali Mahdi markaas shalay dagaalka Muqdisho ka ridaysay 92 Muqdisho aan joogay magaalada Muqdisho aan tagnaa Muqdisho ku dhaawacmay dib aad adigu noo keenina nuguma dhicin dab munaafiq shida muhiim baa ku gubta war gurigayaga madaaficna ugu soo gadashay maxaa keenay taasi ma aad u qabatid dadka umad baad xasuuqaysay inaad iga ciididbe baad wax u qabataan haddaad run sheegaysid
wanaagga iyo sharafta waa dadka aad isku dilayseen aad leenayseen ee hogaamiye kooxeedka af 30 sano aad soo dagaalamaysay ee aad dadka isku dilayseen criminalka in lagu saaro koodh weeyaan dambiilad baad tahay dambiilad dagaal baad tahay warlord baad haydeen maantana dhegaysan mayno walaa midulood baan idin dhegaysanayn walaa cid kale aan idin dhegaysanayn wallah wax idiga dhegaysanaya ma jirto ummadan maanta ayay indhihii u kala baxay maantay maandeeq u darartay maandeeq bay jiqi rabaan ciddii doonaysay xaasid ku ah maxkamadahan wallahi wada geynayna jeelkan ku wada ridaynaa sheekh shariif oo halkaa la soo taagan dambiilaa tahay al-shabaab baad ahayd argagixisaad ahayd terroristaha ka ugu weyn baad ahayd kii heshiiska la galay maraykankaad ahayd adiguna wax dambe oo ka dhagaysanaynaa way dhammaatay waa noo kala dhammaatay nimankaasi dowladda federaalka soomaaliya doorashada way dhigaysaa constitutionka wixii uu dhigay inay ku soconaysaa weligaaba xasan sheekhow ha ku qaylqayli ama ku oy ama ku cabaad maxaa loo leeyahay maxaa sidan maaragtay cabdishakuur weligaaba qayli waxa weeyaan dastuurku wuxuu dhigay weeyaan baarlamaanku hadduu codeeyo oo loo codeeyo in maadaama xaalado caafimaad jirto sharciga constitutionkuna uu dhigo oo ay codeeyaan waa la dhaqan gelinaya dowladda federaalka soomaaliya in loogu daro xaq hadday noqotay dastuurku u yeesho oo ay baarlamaanku isku raacaan uu siiyo markaasi constitutionku siiyo waa lagu dhaqmayaa adiguna halkaasaad markaa weliba waxaad la soo taagay yaa ku dooranaya doorasho adiga ku cararaya cidda ku dooranaysa waa ciddee ninkii badda iibsaday baad ahayd tuug baad tahay afar kaboodlaa cid ku dooranaysaa wallahi inaynay jiraynin hal qof kuma dooranaya waxaa la yidhi soomaalidu ninkii ariga kala qoosatay geela raacaysaa war waxaan adiga kuguma aaminayno adiga iyo xasan sheekh midna toona waanu ogaanay gabra ka talinayay madaxtooyada markuu gabra ka talinayay fartan ninkuu ugu fiiqay adigu ahaa wasiirka arrimaha dibadda oo dhan ka waran nin dhan oo wakiila oo ka askari ah ayaa farta ugu fiiqay oo farta ugu yeedhayay maanta sharaftii iyo ciisigii iyo sharaftii soomaaliyeed baa la soo celiyey cirdiqii soomaaliyeed baa la ilaaliyey cidda doonaysa markaa in aan u shaqayno oo shaqaalo u ah maaragtay imaaraadka iyo waddanada kale waanu ognahay afar iyo tobankii abriil waxa weeye qaraxii dhacay ee weynaaye soobe ka dhacay mid wuxuu ahaa la soo agaasimay ayna soo agaasimeen wadannada shisheeye ee uu imaaraadku ka mid yahay soo agaasimay bahayd cidda arrintaa fulinaysayna dadka halkan jooga ay ka mid yihiin xasan sheekh ayaa ka mid a marka cidda qabiil ku raacaysa warqanaga qabiil haddii soomaali qabiil iskugu faanayso la isku laynayo 30 sanaa soo dagaalamaynay 30 sanaan ismadhina abgaal iyo habar gidir baa 4 bilood cunayay 8 bilood baad cunayseen unison baa idinku timid faa'iidada laga faa'iiday maxay ahayd maxaa laga faa'iiday dhalinyarada intaasoo kun oo qof oo Soomaali baa ku dhintay intaasoo kun oo qof baa qaxooti noqday intaasoo kun oo qof baa jeelal galay waxa maaha wax loo dul qaadan karana maaha waxa weeyaan waynu ognahay wadannada markaynu dagaalka galnay 1994 dagaalada iyo xun ka dhacay ee Rwanda maanta sidee u egtahay Rwanda sidee tahay door to door baa loo sameeynaya door to door waxa la yiraahdo waxa weeyaan waxa weey guryahooda cunto lagu geeyay dawladdu ku geynaysa guriga ka soo bixinaa la leeyahay goormaan gaarayna ragnada iyo xusaansaday annagana qori baan istaba wadana iyo ree fulaan iyo ree fulaan iyo ree fulaan iyo ree qasax iyo ree qurac isku haysana wax soconaya ma hata axmed madoobe markaasi wallahi kenya kama soo noqonaysid haddaad soo noqotana jeelka lagu gelinaya bu'aadlana waa la qabanaya kismaayana waa la qabanaya maamul dawladda federaalka ayidsan lana shaqaynayana la sameynaya been la isku sheegi maayo maamul dadka magaalada nabadii iyo kala dambeyntii xasiloonidii baa lagu celinaya dadka Jubbaland baana dooran doona mar labaad oo maamul wanaagsan oo fiican samaysan doona ma aha mid idinku aad leedihiin mid dawladda ama ay samayso mid idinku aad samaysataan oo leedihiin oo ku faraxsan tihiin oo transparency ah oo amaartay social equality oo la wada leeyahay oo baarlamaan siman oo dadku ay siman yihiin ayaa loo dhisi doonaa meel kastana taas laga sameeyaa Puntland waxay u baahan tahay dab habeen loo sameeyo Puntland Solomaaniyada boqortooyadii Solomaaniyada cid laga yeelaya ma jirto annaga reer hebel Solomaaniyada ayaanu ahaanayna faroole meel uu ka tarinay faroole waa virus wallahi viruska Puntland viruska kuma dhicin viruska la yiraahdo maartay soo sheegana COVID-19 ka isaga ka xun faroole ka xun faroole virus weeyaan faroole viruska ka xun ninka soo istaagan 30 sanadood leh oo 9 jir leh gurigayga geedka hoostiisa ma jeertaan u fadhiisani oo ma jeertaan dhexdeeda xumaan ku kala dhax wada wax la ogolaanaya ma 9 jirka noocaasa irbaday lagu mudo la dhaafiyo wadanka weeyaan
sharciga waa in la hor keenaa dembiye dagaal buu waddankaaga geystay inuu dadna fadhiyana danayna waan aanan lahayn kartideedii aan lahayn aqoonteedii aqoon waan wey nin madhan baa tahay janag madhan baa tahay faroolaa ku maamula socon mayso ummadani inay dhalinyarada iyo dadkii aqoon-yahaniinta ahaa ee doonayay waxbarashada maanta soo bixi laha inaad la fadhiisato oo tiraado waxbarasho maanta ma la-aanaya waxbarasho waxba loogama baahna adduunka wax lala yaabay weeyaan horumarka dadkan inta coronavirus baa ummaddan ka soo gaadhay intaa way joogayaan laakiin yeeli maayaan in aqoontoodii lagula dagaalamo la idhaho waxba baran maysaan caafimaadkoogii lala dagaalamo gabadhay caafimaadka u samaynaysay isbitaalada ka shaqaynaysayna aad erideen adiyo cabdiweli caligaas faroolo wuu ahaa cidda arrintaa ka dambaysay waxaan leenahay mar dambe arrintaasi dhici mayso federaalismku si kale aad wax u fahanteen si qaldan baad wax u fahanteen federaalku sidaa maaha federaalku waxaa la doonayaa federaal haddaad doonaysa waa maamul ismaamul state ismaamulayo weeyaan statekaasi waa inaad adu principal samayso waa in aad samayso maarata waxaa la dhahaa maarata sharciya adigoo aad leedahay constitution gaara aad samaysato dowladda federaalka soomaaliyana waxaa idaga dhexeeya constitutionka dowladda u dhexeeya ay tahay shuruucda dalka aad kula dhaqanto in maaragtay aad dowladda dhexe ee central governmentigana xidhiidh aad la samaysaan oo xidhiidh fiican oo relation idaga dhexeeyo laakiin yaa samaynaya jadwalka iyo nidaamka maaragtay bolisiga iyo siyaasadda lagu hagayo dee dowladda federaalka soomaaliya iskale ee ma laha maaragtay isoo sheeg maamul goboleedka relationship baan samaynaya waa maxay relation war relation xaqadu uma lihid sharciguna kuma siinayo adduunka miyaa la arkay haddii california relation ay la samaynayso ruushka way samayn lahayd ma taasaynu maqalnay ma jirto adduunka xaggee lagu arkay ya state maaragtay anaa doonaya markaasi xidhiidh la samaynaya waddan dee state waddan xidhiidh lama sameeyo marka waxa caqli galana maaha waxa weeyaan waxa uu ka mid yahay waxa weeyaan dowlad deegaanka Soomaalidu kale dowlad deegaanka Soomaalidu Mustafa Cagjar intuu tago xidhiidh toos ah ma uu la sameyn karaa Mareykanka dowladda federaalka Itoobiya ma hoos mari karaa waa maya way ku ma dhigi karaba waayo shuruucda ay Itoobiya ayaan dhigayninba inuu sameeyo uu ku xadgudbay markaasi annagana waxa way kadaalika waa sidaasi federaalku wuxuu u baahan yahay inaad fahantaan war federaalisku saas maaha adiga waxa laga doonayaa jadwalkii aad u dejin lahayd iyo nidaamkii iyo systemkii iyo maamulkii administrationkii aad u sameyn lahayd deegaankaagaasi oo dhinac walba leh in maartay kaabiyaashooda dhaqaalaha ka shaqeyso infrastructure magaalooyinka aad dhisto in kobcinta aqoonta dadka aad kobciso in caafimaadka aad ka shaqeyso arrimaha noocaas lagu dirsado lagu idbado ee lagu ma idman in aad la hor fadhiisato madaxweyne kale oo tiraado waxa weeyaan wadan gaar ah anigana waxa la isiyo hub ha la isiyo ninka Mareykanka hub u doontay yaa hubka u soo qaadanaysa ummadda Soomaaliyeed Soomaa waxaanu arinta u dhaleecaynayna oo aanu aad uga xunnahay wadanka Mareykanka ee hubka siinaya ee hubka khaaska ah Puntland soo siiyay amarkaasi waa dowladda federaalka Soomaaliya waa inay arintaasi ka hadashaa waanu xanu leenahay maartay ambassadorka u fadhiya United Nationska waxaanu ka codsanaynaa inuu dambigaasi Mareykanka ku soo oodo kalfadhiga labaad ee kalfadhiga dambe ay isku imanayaan United Nationska inuu ka hadlo dhigashada sharci darro weeyaan in loo gacan dhaafo dowladda federaalka Soomaaliya faragelinta lagu haynaya ay ka mid tahay Mareykanka hubku siinayo Puntland arinta inuu ka hadlaa waa xaq baad u leedahay waanu kugu taageeraynaa anaguna waana wax sharci weeyaan sidee loo siin karaa maartay loo maamul goboleed hub caadi loo siin karaa waxa ismariyaan ay islaayaan iyadoo aan dowladda federaalka Soomaaliya ogeyn waxa waliba guud ahaanba cunaqabatayntii hubkuna uu saaray wax aqli galama Soomaaliland 3.6 milyan bay soo siisatay hub Saad Muuse ishubeeyay waanu ogeyn 9 container bay ka soo dejiyeen halkaas marka wax been la isku sheegay ma been yeen isku sheegin marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel ka soo dunida dacladeeda ka joogtaan halkan waa Empire of the World Media oo idin soo gudbinaya barnaamijka faaqidada siyaasadda ee arrimaha bulshada iyo taariikhda Soomaalida caawa barnaamijka intaas ayaan ku eekaysiinaynaa insha Allah kulanti dambe oo xiiso leh laakiin waxaan idaga codsanaynaa in subscribe aad noo saartaan YouTube-kayga ama maartay soo sheegana TV Dulmidi TV channel oo markaasi aad subscribe-ka noo saara jeliskana taabta si aad wararka u heshaan ama notification-ka
aad baan idiin salaamaya meel kastoo dunida dacladeeda ka joogtaan waxaad leeyahay habeenku idii wacnaado waxaan idiga tegayaa heestan ugu dambeysa ayaan idiga tegayaa ayaan idigu maca salaameynaya insha allah hadduu lidhaho جراو قوي niman kan ogaa markii loo gooyay maanta mudanayaalo wuxuubiyo abaal marin idinka mutayste haynila garab galo dowladda federaalka ilaaha garab galo xaq bay ku socdaane maanta mudanayaalo wuxuubiyo abaal marin idinka mutayste haynila garab galo habeen wanaagsan meel kastoo dunida dacladeeda ka joogtaan waxaan idin leeyahay kulanti dambe oo xiiso leh halkani waa dowladdii empire of the world media oo idiin soo gudbinaya barnaamijka faaqidada siyaasadda oo waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan iyo kulanti dambe barnaamijka caawa halkaas ku hadlaynayna